شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأدين سلام دمانتينا كسو دوادا channel كينا أميش everything. maanta فيديو عصب maanta maxaan wadanaa waxaan wadanaa biyo bariis iyo basal ayaan wadanaa. maasha Allah biyaha bariiska iyo basasha waxa ay qabtaan waxaan ku yiri war laguma soo koobi karo ahbaabi insha Allah si aad adinkana u samaysataan oo u baraweysaan oo maxaan lahay u aragtaan oo soo tijaabishaan insha Allah. waa wax yar oo fudud ayaan ka sameynay oo waxaan ku yiri bariiska sidaan ognahay guryaha waa laga isticmaalaa, basasha sidoo kale waa laga isticmaalaa. markaas insha Allah waxaan u baahanahay nala daawada insha Allah. asxaabay meeshan waxaa ku haysanaa laba xabo oo basal ah. basasha ahsan waxaa waa basal gaduud. meeshan waxaa ku haysanaa bariis. ani bariiska haysatid ayaa isticmaali kartaa oo aad isticmaashid. maasha Allah bariiska bariis hebel iyo bariis hebelow ma ahan, waa bariis kasta oo haysatid ayaa isticmaali kartaa insha Allah. marka basashana labadaas xabaan ugu filan. bariiska intaan dhammood isticmaali doono insha Allah qaada ayaan gagashan doonaa insha Allah, idinkan waa arki doontaan. marka hadda basashi ayaan jarjaraynaa insha Allah. axbaabi marka bariiska iyo basasha waxaa weeye wax oo sida hore idinku soo sheegnayba guri kasta laga helayo. waana daawo oo natural ah oo maxaa lahay madaxa u fiican. sidaan ognahay basasha timaha waxay maxaa lahay ka saartaa jajabka timaha oo salka kasoo siimaayo ay u roon tahay. bariiskana wuxuu u roon yahay madaxa laftiisa ayuu u roon yahay, laana timaha waxay kasoo baxaan madaxa maaho lafta ayuu u roon tahay. lafta timaha lafta ayay kasoo baxaan, timaha lafta ay kasoo baxaan. lafta haddii maxaa lahay nafaqo ay haysanin waxba ma soo saarayso. beer oo nafaqaysanin macnaa beer oo ooman dalag ma soo saaray iyo doog maya. waa sidaas oo kale timahana. marka axbaabi midna dalagii ayaa maxaa lahay ku doojinayna, midna dhulkii ayaa maxaa lahay aan ku nafaqaynayna insha Allah. sidaas ayay maxaa lahay la mid tahay. basashana waxaan ku yiri timihii ayay waxay u sameynaysaa maasha Allah wax aan inaba caadi ahayn oo laga sheekeyn karin ayay u sameynaysaa. maxaa lahay bariiskana xabaabi wuu soo saarayaa, timihii ayuu soo saarayaa, googa iyo siibkii wax dhan ayuu ka dhameynaya insha Allah. marka xabaabi basashii saas ayaan u jarjaranay. hadda bariiskii ayaa maxaa lahay dhaqanayna insha Allah. marka ugu horeyso waa in oo maxaa lahay hal dhaqmo la mariyo waaye, kadib ayaa maxaa lahay sameyn doonaa insha Allah biyo ku shubitaan iyo barnaamijkiisa. bismillah. marka bariiska waxaa weeye intaas ayaa lagu filan. intaan waxaa waaye waa bariiska aan maxaa lahay oo u baahannahay waa intaan. marka axbaabi waa qaadadan markeedu 4.5 oo qaadadan ah waaye, oo qaadadan macalgadan ayaan ku maxaa lahay ku cabiranay. marka insha Allah bariiska waxaan sameynaynaa waan dhaqaynaa insha Allah. bismillah. maasha Allah. marka waxaan ku leeyahay bariiskan haddii timahaaga maxaa lahay aad maxaa lahay u bartid ku waray inaba caadi maaha. macnaha timaha haddii maxaa lahay ku bartaan oo maxaa lahay aad adiga maxaa la isticmaashid hal week oo kale aad isticmaashid. markii ugu horeysidna aad cabirtid timahaaga intii ahaayeen intii maxaa lahay hal week kadib markaa marsashada week aawadid aad maxaa lahay intii inji kusoo darsantay haddana maxaa lahay fiirisid waa dareemaysaa adaa maxaa lahay arkaysid insha Allah. baabi marka hadda biyihii ayaan ku darsanaynaa. labo half ayaan ku darsanaynaa. hadda laba galaas iyo half ayaa nagu filan insha Allah. marka axbaabi adaaba dareemi karo xitaa waxaad arkaysaa meelo qaar oo timaha oo maxaa lahay meelo qaar oo tin ku yaalin waxaad arkaysaa timo ka soo baxayan insha Allah. marka axbaabi maxaa lahay biyaha iyo basasha hadda dabka ayaan saarnay. saan ayuu wacdiin Soomaaliya wax yar kadibna waad arki doontaa sidii noqdaan.
maasha allah waxaan ku iri biyihii dhamaa oo maxaa lahay saan u cad oo waxaa arkaysaa hadda kalarkooda nooc kale naqanayaan insha allah marka waxaan ku iri wax yar ayaan maxaa lahay dabka ku haan doonaa insha allah maasha allah saan ayuu maxaa lahay u badbaday biyihii hadday cadaanka ahaa oo maxaa lahay biyaha cad ahaayeen hadeer fiirso marka sidee noqdaan kalar ayay yeesheen midab waxay yeesheen oo maxaa lahay cad ah hadeer waa dejinina waa soo qaboojinina waa soo miirina insha allah maasha allah waan soo qaboojinay hadeer waxaa waaye miiritaankii ayaan diyaar maxaa lahay usoo noqonay xabaabii bariiska iyo basasha in maxaa lahay ka miirna ayaa fiican soomahan iyo waxyaabaha kale oo bariiska iyo basasha wax ka gogo ayuu waxaa ku jiro marka inaan ka miirno oo nadiif ka dhigno ayaan rabnaa marka xabaabii hindida iyo maxaa lahay carabta ayaa maxaa lahay anaga dhahnaa timo ayay leeyihiin way timo badan yihiin way timo dheer yihiin sidaasoo kale soomaalida way naqan kartaa laano hindida iyo carabta ma isticmaalaan wax kiimika ah badanaa waxay isticmaalaan waxyaaba naturalka oo guriga u yaalo hadeer labadan natural waaye guri kastan waa laga heli karaa oo Soomaaliyeed marka waxaan ku iri labadan inaba caadi maaha marka adduunka horta naturalka la isku dhaafayba anaga labadaas maxaa lahay dad waxaan dhahnaa way timo badan yihiin way timo dheer yihiin marka insha allah anagana si aan u naqano hindida iyo carabta oo kale insha allah aan ku dadaalno insha allah marka xabaabii saas ayaan u miirnay nadiif ayay noqdeen hadeer weel ayaan kusoo shubaynaa insha allah maasha allah meeshan aan kusoo shubnay marka geedkan maxaa lahay waa plastic dhala ma ahan plastic waaye waxaan ku iri inaba caadi maaha waxaan ku iri maxaa lahay timaha googo ah oo maxaa lahay kala harharay oo waxaan ku iri maxaa lahay midba midi kala gaaraynin waxaan ku iri timaha kaleento oo aan laftaba ka soo baxaynin lafta laano lafta waxa waaye timaha lafta ay ka soo baxaan lafta hadii ay nafaqo la'aan tahay waxa ma soo baxaan beer abaar ay wax ma soo baxayaan oo nafaqo aan lahayn waa maya basashana sidoo kale maxaa lahay waxay taraysaa timihi ay waxay sameynaysaa dhubuc iyo wax u sameynaysaa insha allah hadii aad videogan ka hesay la garay insha allah commentigaaga hoos noo la wadaag asxaabtaada u sii share garay insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi